asbaabaha baryada lagu aqbalo waxaa ka mid ah qofku markuu ilaahay barya inuu ilaahay ammaano oo aad ilaahay u ammaano ammaanaha ilaahay lagu ammaano kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah suuratul faatixa bilowgeeda hadduu qofku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim maaliki yowmi iddiin qofkaasu ammaan aad u weynu ilaahay ammaanay markuu ilaahay ammaano kadib waa inuu nabiga ku salliyaa sala allahu calayh wasalam kadibna markaas uu ilaahay barya nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam nin tukanayuu arkay oon ilaahay isagoon ammaanin nabigana ku sallin ducaysanaya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam cajila haada kan waa degdegay oo baryadii in laga aqbalo isagaa ka degdegay kadib ninkii wuxuu ku yidhi iyo dadka kaleba qof kastoo inin ka mida markuu ilaahay baryayo waa inuu ilaahay ammaanaa nabigana ku salliyaa kadibna wuxuu doono weydiistaa sidaas ayaa la yska rabaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu arkay nin inta ilaahay ammaanay nabiga ku salliyey sala allahu calayh wasalam kadibna ilaahay weyna baryaya nabigu wuxuu yidhi sal tucda ilaahay waxaad rabto weydiisa waa lagu siina ducada asbaabaha lagu aqbalo waxaa ka mid a qofku inuu waqtiyaalka oo sida gaarka sharcigu u tilmaamay inuu baryadiisa ku aadiyo aad waqtiyadaas ilaahay u baryo waqtiyadaas waxaa ka mid ah waqtu nuzuuli ilaahiyi waqtiga uu nabi maxamed yidhi sala allahu calayh wasalam ilaahay samaau dunya ayuu u soo degaa habeenka markuu saddex u qaybsamo qaybta ugu dambeyda marka la gaaro habeenka qaybaha dambe imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey xadiidka jaabir rasuulkeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina fi leyli la saacatan laa yuwaafiquha cabdun muslimun yas'alu llaha tacaala fiiha khayra min amri dunya waalaakhira ilaa acطaahu iyaahu wadalika fi kuli leyla wuxuu nabigeenu yidhi sala allahu calayh wasalam habeen kasta waxaa ku sugan saacad qof muslima hadduu kuba soo aado asagoo ilaahay ka baryaya khayr adduun ama khayr aakhiro ilaahay waa siinaya habeen kastayna ku jirtaa saacadaasu waxaa ka mid ah waqtiyada aad qofku inuu iskugu aadiya la rabo adinka iyo aqinka dhexdiisa adinka muadinku markuu bilaabo albaabada samada waa la fura ilaahayna baryada waa aqbala subxaanahu wa tacaala nabigaana yidhi sala allahu calayh wasalam idaa naada almunaadi tuftaxu abwaabu samaa wa sujibat ducaa mar alla marka muadinku ku dhawaaqo adinka samada albaabadeeda la furaa baryadana waa la aqbalaa war ilaahay barya markaas waqtiyada baryada la aqbalo waxaa ka mid a aad loo aqbalo adinka iyo aqinka dhexdiisa nabigaana yidhi sala allahu calayh wasalam xadiiska abu yacla adducaau bayna aladaani waaliqaamati mustajaab fadcuu baryada oo adinka iyo aqinka u dhaxayda waa la aqbalaa ilaahay barya markaas marka adinku uu dhammaado ka gadaal qofka sida ugu fiicano ilaahay baryadiisa u aqbalo adinka waa inuu muadinka waxa uu leeyahay uu ka daba yiraa markuu adinku dhammaadana uu nabiga ku salliyo sala allahu calayh wasalam ila adinku waa tawxiid waa asbaabad lagu aqbalo baryada asbaabaha ugu waaweyn wey marka uu nabiga ku salliyo sala allahu calay wasalam kadib waa inuu ducaysto baryada waa la aqbalaa ma la soo celiyo ducooyinka waqtiyada la aqbale ee ay tahay inaan ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah qofka sooman dhammaan maalinta inta uu sooman yahay baryada waa la aqbalaa imaamu lbayhaqi shucabuliimaanka wuxuu ku wariyey rasuulkeenna suban sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi halaathu dacawaatin mustajaabaat saddex baryo waa la aqbalaa dacwatu saa'im qofka sooman baryadiisa waa la aqbalaa wa dacwatu lmadluum qofka laga gardaran yahayna qofkii ka gardarnaa hadduu habaarkiisa waa la aqbalaa wa dacwatu lmusaafiri qofka musaafirkaana baryadiisa waa la aqbalaa waxaa kaloo nabigu noo sheegay sala allahu calayh wasalam waqtiyada baryada aad loo aqbalo waxaa ka mid a qofka sooman markuu afurayo imaamu tirmidi ibnu maaja waxay ka wariyeen abi hurayra inuu yihi rasuulkaa yidhi sala allahu calayh wasalam halaaatun laa turaddu dacwatuhum saddex nuucoo dadka ka mida baryadooda lama soo celiye waa la aqbalaa alimaamu alcaadil waa madaxweynaha oo cadliga ah oo cadaaladda wax ku maamula wasaa'im xiina yufdir iyo qofka sooman marka uu afurayo oo afurka dhammeeyo intii uusan afurka dhammayna ducadiisa mustajaabay aheed oo hadda waaba soomana markuu afurana waa mustajaabo iyaduna iyo wa dacwatulmadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkiisa
dacwadoodu waa maqbuula weeye saas daraadeeda qofka waxaa la rabaa muslimka marka uu afuro isla markiiba inta qiblada u jeesto oo ilaahay amano nabiga ku saliyo sallallahu alayhi wasallam inuu ilaahay weydiisto khayrka dunya khayrka aakhiro wax alla wuxuu jecel yahay oo wanaag ah waxyaalaha laakiin muhiimka oo aan inaan ogaano ay tahay waxay tahay baryadaas baabaha lagu aqbalo waxa kamida ilaahay markaad baryaydo oo aad inta amaanto nabiga ku salido sallallahu alayhi wasallam aad baryaydo qalbiga waa inuu xaadiri carab iska dhaqdhaqaaqaya qalbiguna meel kale ka fakaray ilaahay baryada kama aqbalo nabigaana yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis imaam tirmidhi uu wariyay ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba ilaahay barya idinku aaminsan ilaahay inuu idinka aqbalaa wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin laahin ogaada ilaahay baryada kama aqbalo qalbi halmaansan oo moogba waxa carabku dhawaaqa waxa ilaahay wax ka aqbalaa qalbi baahidiisa la xanuunsanayo ilaahay ula jeeda oo carabku wuxuu ku dhawaaqaya qalbigiisu taabanayo aad ilaahay ugu calacalaya oo ilaahay weydiisanaya inuu aqbalo ducooyinka fiicantaa in lagu ducaysto marka qofku afurayo waxaa kamid ah ducadii uu ku ducaysan jiray Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Amr ibn Aas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna lis-saa'imi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu qofka sooman marka uu afurayo wuxuu iska leeyahay baryo aan la soo celin oo la aqbala marka Abdullah ibn Amr ibn Aas wuxuu dhigi jiray markuu afuro Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay'in an taghfir li hadith ibn Majah uu wariyay wuxuu dhigi jiray ilaahayo waxaan kugu weydiisanaa naxariistaada oo wax walba gaartay dhammaan dunuubtayda inaad iigu dhaafto dambigay wax kasta ha la ekaado naxariistaada ka way ilaahu raxmadaada iigu dhaaf saas uu dhigi jiray waxa sunnah qofku marka uu afuro inuu yiraahdo xadiidkii Abdullah ibn Umar ibn Khattab uu nabigeena ka wariyay sallallahu alayhi wasallam oo nabigu dhigi jiray markuu afuro wuxuu yiri Abdullah ibn Umar kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam يقول إذا أفضل ذهب الظمأ وابتلت الحروق وثبت الأجر إن شاء الله ورسولك ديجري صلى الله عليه وسلم أنك واتغي هنغوريغينا واقوي أجركينا واسقنا إن شاء الله أبو داود يا وريي dadka ilaahay baryadooda aqbalan baryadooda la soo celin waxa kamida adoomada ilaahay uu cadaabkiisa ka xoreeyay bishan ramadaan nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam xadiis imaam ahmed wari wuxuu yiri inna lillahi qutaqa fi kulli yawmin wa layla habeen iyo maalin ilaahay wuxuu iska leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyay likulli abdin minhum da'watun mustajaba mid kasto kamida wuxuu iska leeyahay baryo aan la soo celin oo la aqbalo marka adoomada muttaqiinta ilaahay awaamirtiisa ilaaliya ilaahay wuxuu ka reebay ka fogaada ilaahay weyna isku duleeya tuuga ilaahay baryadooda waa aqbala aan mar kale ta isxasuusinayna marka aad ducaysato adana nabiga salligiisa waa inaad ku soo qatintaa nabigana sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay kullu du'aa'in mahjubun hatta yusalla ala nabi baryo kasta waa la xijaabay in la aqbalo ila nabiga lagu salliyo sallallahu alayhi wasallam ilaaha wayna asmaadi sifaadiisa waxaan uga baryaynaa ilaahay adoomada uu cadaabkiisa ka xoreeyo inuu nagu daro adoomada uu dambi dhaafay inuu nagu daro ilaahay kuwa uu baryadooda aqbalay baahidooda adduunyo midooda aakhiraba xalliya ilaahay inuu nagu daro wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad